shaqaysaa dalkan iyo 6 dal oo ka mid ah Afrika waxaana beeskeedu yahay Washington. goormayna dalka waxa ay dalka timi markii ugu horeysay 2007. waa gartay maanta maxaad halkan ku soo bandhigteen BSI ahaan? waxaan filayaa inay BSI tahay hay'adda kaliya ee xagga carwadan ugu horeysa maadaama hay'adaha kale waxa ay soo bandhigayaan waraaqo reports qura annagu laakiin waxaan soo bandhiganaa products tangible ah kuwaasoo loogu talagalay waxqabadka aan ugu talagalnay caafimaadka. waxa productskan aanu soo bandhignay adduunyada waa ka qaali lagama heli karo dhammaan Somaliland oo ma keeni karaan wholesalerska dalka yaala waayo chlorine lagama helo adduunyada oo laguma iibin karo private sectorka. sidoo kale kiniinka umulgargaar isagana waxa weeyaan kiniin aanay soo qaadi karin bulshadu. waxa ka mid ah kiniinka kale qaaliga ah zinc oo ku jira isku dhafka loo yaqaan shuban daweeye kaasna lama keeni karo. marka waxaan maanta bulshada halkan ugu haynaa inaan idin keenay kiniin aad arki kartaan waxqabadkiisa oo aan manual ahayn ee automatic. markaad leedahay manual bal noo sharax dawooyinka halkan yaal ahaan kiniinka waxa weeyaan kiniinka loo yaqaan biyo sifeeye waxa uu ka hortagaa jeermiska ilma qabatayga ah adigu ma arki kartid jeermiska marka uu dilayo. waxa halkan amaba lagu qabanaya oo magaalada yaala kiniin qalabka loo yaqaan biyo miire kaasoo amaan wali qofku inuu biyaha ku dulshubo oo uu ka reebo oo qura qoryaha ayaa waxyaabaha xashiishka ah aniga oo aan kaasi durayn waxaan uga jeedaa kani waa habka ugu sahlan inaad xushada uma baahnid inaad biyo mooyay sax isticmaasho qaali uma baahnid waa koodshilin oo kaliya ayaad ku ridaa kiniinka at the same time biyo way daweysan yihiin tacab badan adoon galin. waxa sidoo kale kiniinka waa ka hortaga waxa halkan kuugu diyaara kiniinka daweyntiisa oo ka kooban 2 nooc oo ah ORS oo loogu talagalay fuuq celinta iyo zinc oo loogu talagalay soo noqnoqoshada shubanka inuu ka hortago. waa shuban daweeyaha waa isku dhafka ka kooban maadada loo yaqaano zinc oxide iyo ORS oo aad wada garanaysaa waxyaabaha loo isticmaalo. waxa halkan kale yaala kiniin isagana sidoo kale isku dhaf aan idhaahdo aan ka koobnayn oo ah 2 nooc oo ah kiniinka loogu talagalay family spacing ama family planning kaasoo aan nasiya aan u magac bixinay oo ah family planning biliska kiniinka ah iyo isagoo irbada kan waa kiniin waxa loogu talagalay 28 cisho ka kalena waxa weeye irbada oo waa 3 bilood leh xaga kan laga isticmaalo maalin kasta. family planning waxaan uga jeednaa in Soomaaliya ku hadla waxweeyaan waa kiniinka lagu kala koriyo ubadka inta loogu talagalay oo 2 sano ee diinteennu bay naga dhiirigelinayso iyo dhaqankeennuba waa kiniin loogu talagalay in lagu kala koriyo. sidoo kale looma isticmaalo qura kala korinta ubadka waa kiniin sida caadiga dhaqaatiirta ay ugu qoraan dawo ahaan oo ay xagga gynecology dhakhtarada ee dumarka ka shaqeeya ay dadka u qoraan. waxa halkan ku yaala kiniin kale oo magaciisa loo bixiyay umulgargaar oo la yiraahdo magaciisa ama Ingiriisiga misoprostol kaasoo loogu talagalay inuu ka hortago ama uu daweeyo dhiigbaxa dhalmada dabadeed. laakiin kiniinkaas isaga waxa loogu talagalay noocyadan aan keenna dawooyinku waa 2 nooc oo qaybsan yihiin. qaar waxaan marinaa channelka la yiraahdo private sectorka ama suuqa xorta ah qaarna waxa la mariyaa ka dawliga ah. umulgargaar isaga waa dawli waxaan dhakhtaryo MCH ahayn laguma arki karo laakiin nasiya products shuban daweeye iyo biyo sifeeye farmasi kasta waa laga heli karaa. kiniinkan nasiye ma farmasi kasta lagu iibiyaa qofku ma u baahnayna markuu iibsanayo warqad dhakhtar uu soo qoray? waxa weeyaan dhakhaatiirta ku shaqada la dawooyinkan qorta farmasiyada qora annagu waxaanu ku dadaalay inaanu ka dhigno wax suuqa laga heli karo oo farmasiga qof kasta u yaala laakiin waxaanu ku dhiirigelinaa inaan dhakhtar waraaq la'aan aan la qori karin ayaan ku dhiirigelinaa. waa gartay dadweynaha halkan idinku soo booqanaya waa dad intee leeg baa idin soo booqanaya xog maxay aanad waxaan filayaa ilaa shalay ayayba carwadu bilaabantay shalay tole mashquulka aad u badnaa maanta sidoo kale TV-da aad isku weydaaranaya waxaan filayaa in aad every second ama 3 daqiiqaba ay ku soo marayaan 5 qof ama 2 qof oo aad sharaxayso. marka waxaan filayaa inay tahay carwadani ka duwan kuwii hore oo aan awal xaqii wax laga iibsan jiray ama hay'adaha ay ka ahaayeen ganacsiga kan waa hay'ado waxa weeyaan warbixin badan baa la qaadanaya. waan gartay dadku fikir sidee ka haysteen BSI ahaan marka hore dadkan idin imanaya fikir sidee maaragtay idin la imanayaan su'aalo nooceedii weydiinayaan
maxaad ku qancisaan? waxaan filayaa inay tahay BSI saaxiibka bulshada waayo waxaan si aan kaa dhex galo BSI waxa ay tahay waan isla garanay laakiin dadku badanaa waa markii ugu horraysay sidaan filayo dadka rayidka ah ee caadiga suuqa jooga aad si toos ah foolka fool ula kulantaan marka dadkani fikir sidee ka haysteen BSI maxaana iska bedelay fikradooda markay in yar idinla sheekaystaan? waxaan u jeedaa halkaa waad iga dhex boobtay saaxiibtinimadan ku sheegaya waxa weeyaan waxa aanu saaxiib ka nahay bulshada miidiyaha taasoo aanu ka hadalno idaacado fara badan oo ah intaasoo janalka biyasifeeye janalka shubandaweeye janalka nasiye janalka umulgargaar iyo sidoo kale dalladda ay ku bahoobeen farmasiyada bulshakaab markaa bulshadu waxay marka hore nagu taqaanaa magacaa wanaagsan deeta waxay noogu imanayeen iyagoo oo noo garanaya sidai awalba noo yaqaaneen intii kale waxaa jirta bulshada qaar aan na maqlin intaana waxaannu ka dhaadhicinaynay fikirkayaga iyo himiladayda halka ay taagan tahay intaasina way nala qaateen maasha allahu tacaala aad baan ugu faraxsannahay laakiin waxaannu kala hadalnaa bulshada 12 idaacadood waxaannu saaxiib dhow baanu nahay aad bay noo garanayaan. waad mahadsan tahay dabcan hay-adda BSI way mahadsan tahay dabcan barnaamijkeennu waa uu sii socon doonaa oo waxaan idiin soo gudbin doonaa waxqabadka ama bandhigga hay-ado kale oo carwada ah